أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. waxaan ka hadlaynaa in sha allah lisaanka carabka inaan xifdino oon ka ilaalino muslimiinta carabkayna inaan ku goosanin ama aanan ku cunin ama aan ku aflagaadaynin in sha allah. إمام أحمد بن حنبل، حديث إمام أحمد بن حنبل رحمه الله من حديث الأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. رسولك يوكوري صلى الله عليه وسلم إيمانكاغا ما توسايو إلا qalbigaaga oo ka tooso, qalbigaagana ma toosayo ilaa lisaankaaga oo ka tooso, carabkaada oo ka tooso. marka xadiidka waa kana: laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuhu. rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ilaa qalbigaaga, ilaa iimaankaaga oo ka tooso wax hagaagaya ma jiraan. iimaanku waa inuu hagaagaa. iimaanka waxaana ka horeeyo qalbiga wuu inuu hagaagaa, qalbigana waxaa ka horeeyo lisaanka inuu hagaagaa. wax walba marka furahiisa waa lisaanka. xadiidkan xadiidulxasan, xadiid xasanow, imaamu tirmidi ayaa werinayo. wuxuu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam: laa tuksili lkalaama bigayri dikri illah, faina kasrata alkalaami bigayri dikri illah qaswat lqalbi, waina abcad annaasi can illahi alqalb lqaasi. waxaan ilaahay dikrigiisa ahaynin haddaad carabkaaga ku badiso, qalbigaaga ayaa carabkaaga haddaad ku badiso waxaad noqonaysaa waxaanan ilaahay dikrigiisa ahaynin. lama ogola inaad qalbigaada carabkaaga lisaankaada aad ku badiso. maxaa yeelay fa ina kasrata alkalaami bigayri dikri illah, haddaad ku badiso ilahay dikrigiisa waxaan ahayn qaswatulqalbi ayaa kugu dhacayso, qalbiga ayaa qalalayo. marka waina abcad annaas can illahi alqalb lqaasi, waxaad laga yaabaa marka ilahay inaad ka fogaato. markii qalbiga marka u qalalo waad adag tahay, aada iyo aaday u adagta. marka wax walba in laga fogaado oo lisaanka dhib u keenaya. lisaanku waa aalad laba af leh, jannadana asaa dadka geeyo, naartana asaa dadka geeyo. markii waxun haddaad ku sheegto naarta ayaad ku tegaysaa. haddaad wax fiican oo wanaagsan oo ilaahay kalaamkiisa iyo wuxuu ilaahay ka raaliya aad ku sheegto na jannada ayaad ku gelaysaa. marka imaamu ibnu jawzi raximahullah hadal aada u qaymila ayuu meeshaan ka soo jeediyey. waxau dhahay: faman xafida lisaanahu liajli llahi tacaala fi dunyaa, ruuxii carabkiisa xafido ilaaliyo oo adduunka ku ilaaliya carabkiisa intuu joogo, adlaqa allahu lisaanahu fi shahaadati cinda almowt waliqaa'i illahi tacaala. markuu dhimanayana shahaadateynka inuu ku dhawaaqa ayaa u sahlanaanayso. maxaa yeelay barkii carabkiisa wax wanaagsan ayuu ku sheegi jiray, wax xunna wuu ku ilaali jiray. waliqaa'i illahi tacaala, la kulanka dambana wuxuu noqonayaa asagoo shahaadateynka ku dhawaaqaya ayuu la kulmaya hadduu ku dhinto. barkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu dhahay: ruuxii shahaadateynka ku dhinto
waxaa lagu tilmaamay insha allah inuu yahay ruux jannada gelaayo markuu dhimanayo. marka maxaa kasoo horjeeda marka waman saraxa lisaanahu ruuxii carabkiisa ku sii deeyo fii acraadi lmuslimiina muslimiinta cirdigooda oo wax ka sheego oo aflagaadeeyo oo si walba ugu aflagaadeeyo ku cuno carabkaa waxaa ku dhacaysa wa atbaca cawraatihim cawradoodana raacraaco amsaka allahu lisaanahu can الshahaadati cinda almowt. ilaahay amsaka allaahu wuxuu ka qabanaa lisaanahu carabka can shahaadati kuma dhawaaqi kara shahaadadeynka cinda almowti markuu dhimanayo. maxaa yeelay carabku wax fiican laguma sheegin. markaad joogto waxaa laga rabaa carabkaada inaad xukunto mar walba aada ilaaliso. cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhuma rasuulka sala allahu alayhi wasalam ayuu wuxuu ku wariyey, wuxuu dhahay man samata waxaa nabad galay man samata najaa ruuxii aamuso wanaag ayaa loo qorayaa. rasuulkana sala allahu alayhi wasalam wuxuu dhahay falyaqul khayran man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut. hadal wanaagsan ku hadal ama iska aamusnaataa ku khayr badana. haddaada hadal wadaagan sheegayna inaan iska aamustaa insha allah khayr badan. marka insha allah dardaarankeena intaasaa kusoo gabagabeynaa. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.